xilligan iyo casrigan la marayo waxaad moodaa habkii horey loogu yaqaanay waxbarashada amaba dariiqii iyo wadadii loo mari jiray inay isbedeshay dariiqan traditionalka ee in qofka KG wax looga soo bilaabo oo loo wado ilaa 12 oo jaamacad 5 sano 6 sano 7 sano in uu jaamacad dib u galo oo qofka cimrigiisii ugu yaraan 25 sano uu ku soo dhameysto inuu galaas soo fadhiyo iyadoo galaaska uu fadhiyana aysan aqoontaasi ahayn aqoon maskaxdiisa uu ku keenay ama maskax dhaqaajin uu sameeyay ama aqoon soft oo fudud oo si fudud uu wax uga faa'iideysan karo balse ay tahay qalin iyo warqad iyo maaragtay handout ama textbook aanan noloshiisa maalinlaha saameyn ballaaran la lahayn ama haddii dhanka laga isaga laftiisa uu yahay un akhriye laakiin uunan ahayn qof noloshiisa iyo waxa kan uu akhriyo isku macnayn karo natiijo ka soo saari kara waxaad moodaa dunidu inay isbedel samaysay dunidu waxaad moodaa xataa librariyadooda hadaad fiiriso waxyaabaha ku badan iyo buugta ku badan inayna ahayn buugtii markii hore laynagu akhrin jiray inaan akhrisano inaan iskoolada ku dhigano inaan jaamacadaha ku dhigano laakiin waxaad arkaysaa iyagoo skillska iyo xirfadaha iyaga oo runtii aad iyo aad u bogaadinaya aad moodidna dadka nolosha saameynta ku leh ee aadamaha maanta jooga u wada muuqdaayna inaynan ahayn dad ka soo baxay jaamacado dad ka soo baxay kulliyada sarsare dad sanado kuraas soo fadhiyay iyo maaragtay handoutyo iyo textbookyo courses la xiriira soo akhriyaynayn haddaba aqoonta guudi waa wax meesheed waa wacaal iyo ogaal qofka laga raba inuu wax badan ku ogaado qofkuna wax takhasus u yeesho laakiin maanta waxaa jira waxyaabo yar yar oo kale ku caawin kara oo xirfado oo inaad akhrido u baahan oo kaaga baahan inaad netka gasho inaad internetkii gasho inaad computerkaaga isticmaasho inaad telefoonkaaga isticmaasho oo aad ku ugu fudud in aad runtii aad samaysid koritaan inaad samaysid waxay dunidu maanta ka sii guuraysaa habkii traditionalka ay naqaan waxay sii guuraysaa xirfad waxay sii guuraysaa in graphic design la barto waxay sii guuraysaa in dadka la baro muxuu ahaa xirfado yar yar oo kooban waxay sii guuraysaa in la baro qofkii xirfado farsamo gacmeed in la baro xataa reer galbeedka dadka qaxootiga ee tagay isla markaa waxa la barayaa xirfadaha yar yarka ee fudud baa marka loo barayaa 5 bilood 6 bilood sanad 2 sano bas wax ka badan aan lahayn halka jaamacadii 5 sano 6 sano iyo iskoolkii oo 12 sano KG iyo wixii hadii lagu darana kaba sii badnaanaya haddaba dhageyste dunidan maanta aad joogtay ma aha mid ku tiirsan aqoon min KG ilaa 12 la gaarsiiyay ilaa jaamacad la sii wado ka bacdi qofka soo baxay isagoo nan qaarkood ay soo baxaan iyaga oo buug wata iyo qalin wata wax macaan oo ay nolosha ku soo kordhin karnaysan jirin ugu yaraan hal abuur sameyn karin kii dhaqaalaha soo bartay isagiiba dhaqaale ma samaysan karo kii xisaabaad soo bartay wixiisa xataa ma xisaabsan karo mushaharkiisa xataa ma xisaabsan karo and that's the problem oo maanta jaamacadaha wax laga dhaxlaya marka waxa isku daydaa in aad aqoontaada tayayso aqoontu ma aha ogaalkaaga markaan aqoon ku leeyahay ogaal baan kaaga jira aqoon markaan ku dhaco soo xasuusan jaamacadda iyo librariyadii iyo buugtii iyo waaweyneed ee waxa soo xasuusan ogaalkaaga xirfadahaaga inaad kor u qaadid in aad 2 lugood yeelato haddii maanta iyo 3 iyo 4 baynaad yeelato oo macnaheedan ka wada 3 xirfadood iyo 4 iyo 5 yeelo haddii xirfad iska ka soo xidho ta kaleed ku istaagaysa xirfadda labaad haddii iska ka soo xidho ta kaleed ku istaagaysa laakiin haddii aad hal xirfad leedahay waxaad la mid tahay sida hal qof oo hal lug ku taaganaya la mid tahay lugta haddii la riixo qofkaas waa dhacaya marka dhalinyaro isku daya inaad noloshiina xirfadaha dhanka xirfadaha inaad u badisaan sidoo kalena aad akhriska iyo buugaagta kale ee dheeriga in ayagana akhridaan oo wacaalkiina dhistaan oo ogaalkiina dhistaan oo garaadkiina aad kor u qaadaan aad ayaad u mahadsantihiin intaan muuqaalkan oo kala kulmaynana sidaas iyo nabadgelyo